soo dhawaada saaxiibadeyda ku xiran page-ka Geelka Casim Garaad iyo YouTube-ka Garaad Tubdhisan. Maanta waxaa idin haynaa arrin aad u murugo badan. Dalka Pakistan waxaa ka dhacay arrin mucjiso ah taas oo galaafatay nafar laba qof. Arrintan waa arrin aad u yaabiso aad uga murugoonayso. Waxaa ka dhacay dukaan lagu iibsado alaabaha oo ku yaal dalka Pakistan. Gabar yar oo ka adeeganayay ayuu nin wax ka duubay muuqaal sirac muuqaalkaas ay nafteedii galaaftay xaafadoodna galaaftay ka hor dhici maayo muuqaalkaad la arki doontaan gadaasheeda ayuu ka muuqdaa waxba may galabsan laakiin waqtiga ka dhamaaday gabadhan yar dukaanka ayay ka adeeganaysay wax ay ka warhaysan maysan jirin دا پیغام درم چې بل د بل ناموس یا د بل خور او مور یا د بل ګاندار ته په چپ نظر یا د بل کشر ته ګوري الله به د عشر من کړي لکه زه شرون تل د سار ترګه ولاړم بل مسلمان دی الله دې وساتي ما پرات نه حالت ما پرګر دې نه حالت باسه د غوالم ورونو شیطان ملار وایي والله تقول سوي gabadha yar oo adeega soo doonatay dukaanka ninkan odayga ah ayaa muuqaalkii ka duubay kadibna gabadhii yareed muuqaalkii ayay si weyn ugu faafay baraha bulshada sida TikTok oo uu soo dhigay muuqaalka waxaa ka falceliyay 5 milyan dadkii ehelka ahaa ayaa arkay tii yareed dil ayaa lagu xukumay oo saasay sidii loo dilay nafta laga jaray ninkina reerkoodii ayaa soo qaaday goob fagaara ku dilay waa dhacdo ugub ah oo ka dhacday dalka Pakistan.